عاش الله ولم ينقش يا حليم الله إلا رجع عبد الله بالليلة هذا وحلي عبد القادر ما أدرك تفردوس قادر ما أدرك تي إسكا فريسات الجريين إسكا شوجي سوريين قندة النبي محمد نقاطه كان عايد العنطي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha nala socda waxaan idin leeyahay wixii aniga muuqaaladayda iyo barnaamijyadayda dhammaan waxaad kala socon doontaan haga media subscribe de waan idin salaamayaa haddii loo bartay social media in ummadda Soomaaliyeed lagu joogsado lagu aflagaadeeyo lagu caayo wixii oo dhan waa isbedelay ummadda waxaad kaliya oo garsoorba inoo ah qof iyo hadalkiisu eg nin walba waxaad ku xisaabtami doontaa qof iyo hadalkiisu eg qof walba wuxuu ku hadlo ayay ummadda Soomaaliyeed ku qiimeyn doontaa hagaag wuxuu yiri qorraxdu way diiran tahay dayaxin lagu soo dhawaa badihii way soo durkeen hawadu way dibirsan tahay daruurtu dhankay u socon dabayluhu uma dhacaan shabeelle hadduu dibado baruu daafaha jabsaday dunidu waa aakhir saban dadkuna wuu yaaban yahay dagaalkii waa la nacay degtana qori baa ku jira bulsho afka la isku daro bulshadu way doodaysaa haddana la isma deeqayo waxba la isku diidan yahay dad yahu Soomaaliyeed ilaahay nama dulmine dambiga inaga iska leh inta markaan ka gudbo waxaan doonayaa inaan bal ummadda la wadaago arrimo aan ka yaabay anigu waxa kamida salaan sharaftii oo suuli laga qoday bartii maxamed siyaad bar fadhiisanay ma ka habaabaysa waan ku keeni doona waan ku tusi doona waayahay halkii la oran jiray ku salaan dab ee ciidanku mari jiray iyo bartii maxamed siyaad fadhiisanayay bartii suuli baa laga qoday waad arki doontaa haday kaaga roontahay war dalkan wixii wax garanayay waxna way dhinteen waxna way dhoofeen oo dhiikar baa dilay Soomaad garan waxa la yiraahdeen dhali barru kuma la qanyoodo aniga iyo inaan ku jiro oo aan Soomaad garan waxa la yiraahdeen dhali barru kuma la qanyoode oo waxba dareemay baa iskaga nool Soomaad garan marka taa waan ka yaabay sala sharaftii oo suuli laga qoday ee adigu maxaad ka yaabtay talabaad waxaan ka yaabay qodob kale oo cajiib ah oo doonayay in dadka la wadaago nin baa loo dhiibayaa mas'uul baa xil loo dhiibayaa xilkii buu qaadanaya dushu saaranaya uu la durdurinaya bal ilaahay amarkii wariyaa ilaahay yahay oo muslima waxa la oranayaa xilkii baa laga qaaday wuxuu oranayaa sharciga ma waafaqsan sida la iiga qaaday oo markii lagu dhiibayay ma tiraahdi sharciga ma waafaqsan sida la iigu dhiibay falyatana fasil mutanafisuun arrintaana waan ka yaabay ee ummadda la wadeegaya nabarka saddexaad ka yaabay baa lidii sheegaya Soomaad garan adigu waxa isku dhimanin adaa waxyaabo badan markii doonay waayahay masaajid baa dar ilaahay loo dhisaya warbar hadda aad ii dhigayso oo hadalkayga nuxurka kala bax Soomaad garan ila hadalku baruur iyo jiid buu kala leeyahay wixii baruura ka gooso baleeg hadda masaajid baa la dhisaya dar ilaahay baa loo dhisaya baa lagu leeyahay waayahay jidkii dhinac masaajidka ka soo bililqaysanaya xaafad xaqan ka xigtay oo islaantii xaaji muumina Ismaaciil ahayd booskeedii bar baa laga soo goosanaya masaajidkii baa lagu daraya bar baa Soomaad waa lagu daraya waa la taagaya waxa leeyahay waa masaajid oo ilaahay ma wuxuu ku dhulii soo bililqay oo isoo buu ilaahay ku ilaahay waa subxaane Soomaad garan falyatana fasil mutanafisuun arrintaana waan ka yaabay oo ummadda la wadaagi lahaa nambarka afraad aan ka yaabay baan idin ku daraya arday jaamacad dhiganaya bal hadda eeg waa waxyaabaha iga yaabiyay wariyaa ilaahay yahay oo muslima arday baa jaamacad dhiganaya waxa leedahay kaalay sit down here ila af Soomaaliga hadda waa la iska wada diido waxa la yiraahdo af Ingiriiska ka fiican sit down here please baa leedahay walaalkan fadhiiso please can you show me your handwriting wuu bilaabaya ilaahay baan ku dhaartay sidoo wax u qoray waaba dacwo la kordhabay bakeyle la hoos dhibay wariyaa islaamaha waxaan garan oo adeer jaamacad baad dhigataa alla kanaaca ku cuntay tan indha cadays international university baa dhaaltaabada oranba Soomaad garan marka qodobkaana waan ka yaabay waayahay arrin kale oo ka yaabay aan doonayay in dadka la wadaago waayahay barigii hore ciyaartooyda dad baa la hadal hayn jiray ciidamada dad baa la hadal hayn jiray aqoonta iyo educational campusiska waxba la hadal hayn jiray imika cid la hadal hayma maqashay professor la hadal hayma maqashay jaamacadaha wax ka dhiga miyaad aragtay arday la hadal hayma maqashay ciyaartooy la hadal hayma maqashay wax la hadal hayma maqashay niman general ciidamo miyaad la hadal hayma maqashay dadkii waa garba siman professor caalim man xusuusta oo la folo wax ka dhigi jiray xisaabta dhigi jiray professor Ebiyan man xusuusta educational campusiska Soomaad garan ciidamada hadii la yiraahdo lama indey ninkii la oran jiray ma garanaysaa ila hadal hayn jiray aweys madaafiicda
soomaad garan bayloodada qaar baa la hadalhayn jiray oo waxaa kamid ahayd gabadhii da Afrika ugu horeysay dawlad kicisa waa gabadhii ahayd asli cabaade soo hadda wax la hadalay ma aragtay dadku kulli waa gacan saar hore soco waa garba siman arrintan waa soomaad garan midda kale arrin kale oo ka yaabay baa jirta بريء أنه دقيقة دكسي هو سيد دكسي كده يا واحد مغلي شري دواء عند دكتور كوي قرين هعوني ومدي الصومالية دول لقين إيسا يا كرين مالك هالشيء كرين كبر القيد ويا اللي هي مسلمة ودكسي هو صار أنا لو قلت دواء عند دكتور كوي قرين هعوني لما حضر ومدي الصومالية كرين كان يقدم تقان وكرين اللي يراه فدرال يا طريقة كان الصومالية وين القيد الله كل انت إلهي دينك مركز أساس قال لي كنت المدحون أحمد نذبح يسكبوا ذيول فدرال كحلول كبارو ترى وروحنا نحن نقول هذا الدولة فدرال كما هالليو فدراليزم كان كهالليا إسكتشريا فدراليزم أنكم من نقان تضوال على نونهاي أو كل جاي يوحنا نونهاي سومالي قرني إسكودين بنا سني بنا نونهاي سومالي دو وهل قيس وترميده كنت هالجوش يجيني سومالي قرني أرين ثانوا كيف